kulanti waxaan asxaabi meel walba joogtaa ku soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka halkaan maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaanta waxaana ku bilaaban doonaa maalmahan waxaa caado noqotay Bollywoodka in ay sameeyaan filmo isku xigxiga sidoo kale waxay keeneen filmo taxane ah oo kala duwan ninka caanka ah ee lagu magacaabo Mohit Sori ayaa sheegay in filimka AK Filani ee la daawaday 2014 ayaa lagu wadaa in laga sameyn doono qaybtiisa labaad oo ay wada jiri doonaan John Abraham iyo Aditya Roy Kapoor. AK Filani wuxuu ahaa filim action ah iyo jacayl waxaana ka soo muuqdeen Siddhartha Malhotra, Shraddha Kapoor iyo Ritesh Deshmukh. Aditya Roy waxa uu soo bixi doona filimka Malanka waxaana ku weheliyaan aktarada kale ah Disha Patani, Anil Kapoor, Kunal Khemu kuwaasoo hogaamiyaal ka yihiin filimkan waxaana la sii dayn doonaa 7 bisha February. Halka dhanka kale John Abraham markii ugu dambeysay lagu arkay filimka Bagalamati kaasoo la daawaday sanada 2019. AK Filani 2 waxaa la bilaabi doonaa dabaqada labaad ee sanadka 2020 marka dhammaan jilayaasha lasoo gabagabeeyo. Dhanka kale dhowr aktaro oo caan ah kana tirsan Bollywoodka ayaa u qaatay baraha bulshada in ay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan weerarkii dhawaan lagu qaaday xarunta jaamacadda ee Jawaharlal Nehru ee ku taala Delhi. Jaamacadan ayaa kooxo sixroolayaal ah ayaa u galay xerada oo ay weerareen ardayda iyo macallimiinta fiidnimadii Axadda. Dadka dareenkooda ka dhiibteen waxaa ka mid ah Alia Bhatt, Kriti Sanon, Ritesh Deshmukh, Farooq Dhawan, Arjun Kapoor iyo film sameeyaha caanka ah Hansal Mehta iyo kuwa kale oo aragtidooda ka dhiibteen ama aragtidooda la wadaageen baraha bulshada. Aan usoo gudubno box office-ka. Filimka Good News waxa uu sii watay isbedelkiisa ganacsiga. Isniintiisa labaad waxa uu sameeyay ganacsi adag waxaana keenay 4.75 ilaa 5 karoor lacag gaarayaan waxaana gabi ahaanba dhamaaday xilliyada ciidaha iyada oo xafiisyada iyo iskuulada dib loogu soo laabtay. Filimkan waa inuu soo xareeyaa 50 karoor isbuuciisa labaad. Sidoo kale filimada Meesha Mangal iyo Hustle 4 wax yar ayay ka hooseeyaan ganacsigiisa waana filimka toddobaadkiisa labaad ee lacagaha ugu badan u soo xareeyo Akshay Kumar. Wadarta guud ee lacagaha uu soo xareeyay filimkan muddo 11 maalmood waa 163.50 karoor. Filimkan waxa uu gaari doonaa cimri ahaantiisa ilaa 200 karoor waxaana ka sareyn doono kaliya War iyo Kabir Sen kuwaasoo la daawaday sanada 2019. Lacagaha Good News ilaa taariikhda waa sidan soo socota. Toddobaadkiisa koowaad waxa uu keenay 124.94 karoor. Jimcadiisa labaad waxa uu keenay 8 karoor. Sabtida labaad waxa uu keenay 11.50 karoor. Axadiisa labaad waxa uu keenay 14 karoor. Isniintiisa labaad waxa uu keenay 5 karoor. Toddobaadka labaadna isku dar ahaan waa 38.50 karoor. Waa xaraash ama 4 maalmood gudahooda. Total waa 163.44 karoor. Sidoo kale waxaa tiyaatarada saaray filimka Dibakitri waxa uuna soo xareeyay 40 lag isniintiisa saddexaad taasi oo ka dhigan muddo 18 maalmood gudahooda in uu ku soo xareeyay 134.75 karoor. Filimkan ayaa lagu qiyaasay in uu gaari doono cimri ahaantiisa ilaa iyo 150 karoor. taasina waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah iyo halgan in lagu gaaro 150 karoor. maadaama isbuuca soo socdo ay soo bixi doonaan aflaam waaweyn. sidaas darteed waxaa laga yaabaa in tiyaatarada badankooda cariiri ay ku noqdaan filimkan. toddobaadkiisa koowaad waxa uu keenay 112.53 karoor halka toddobaadka labaad uu keenay 19.24 karoor. jimcaha saddexaad waxa uu keenay 50 lag. sabtida waxa uu keenay 75 lag. axadda waxa uu keenay 1.25 karoor.
Isniin waxa uu keenay 40 lag. Toddobaadka saddexaad waxa uu keenay 2.9 karoor, waana 4 maalmood gudahooda. Total lacagaha uu keenay filimkan waa 134.67 karoor. Fadlan subscribe saar, gambalaalkan riix si muuqaal walba uu kugu soo dhaco. Waad mahadsantahay daawashada aad daawatay. Mahadsanid.